nin oo shacaba ayaa ku dhintay sarkaal ka tirsan ciidanka ammaanka Puntland iyo hal qof oo shacab ahna waa ay ku dhaawacmeen israsaasayn xalafiidkii dhex martay ciidamada ammaanka Puntland iyo rag la sheegay inay hub sharci darro ah ka dejinayeen xeebta dhinaca bari kaga aadan magaalada Boosaaso goobjoogayaal ka agdhawaa xeebta uu iska horimaadku ka dhacay oo magacooda ka gaabsaday sababa ammaan dartood ayaa VOA u xaqiijiyay inay baxsadeen sixiimadii hubka waday iyo raggii dejinayay hubka sharci darrada ah dhinaca kale saraakiisha laamaha ammaanka Puntland oo ay VOA la xiriirtay ayaa ii xaqiijiyay dhimashada halka qof oo shacabka ah dhaawaca sarkaalka iyo dhaawaca qofka shacabka ah waxa kaloo saraakiishu ay ii sheegeen inay weli ku guda jiraan howlgal ay ku baadigoobayaan hubka iyo raggii watay oo ay sheegeen in qaarkood ay u baxsadeen dhinaca badda Faadme Yaasiin Jaamac VOA Boosaaso